بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan ka hadli rabnaa mowduucaas waa mowduuc in badan iga guuxayay muhiimna ah. Mowduucaas waxaa weeye waxa la dhaho taabico. Waa maxay taabica? Ama maxaa la dhahaa umusibyaan? Ama maxaa la dhahaa dabayl? Horta waa habar jinni oo yahuudiyad ama masiixiyad waxay jeclaanaysaa qofka ama waxay xasdaysaa qofka, waxayna noqonaysaa saddex nooc wey. waa jinni caashiq ah ama waa qariin waxaa qofka raaco oo mataqaanaa wahuwa yamnacu zawaaj, wuxuu ka reebayaa guurka, oo yufariqu bayna al-azwaaj, ama waxay kala geynaysaa labada isqabo. min aljinni alcaashiq, waa jin caashiq ah oo qofka jeclaaday. min ajli sakan aw min ajli caysh fiihi, ama mataqaanaa wuu kula degayaa ama wuu kula nool yahabo. wa min aljinni alcaashiq, kan ku jeclaaday. jinniga markuu ku jeclaado maxaa lagu gartaa? lizina, wuxuu ku amrayaa zinada. wayukthiru istixlaam, waxaa kugu badanayso waxa la dhaho waxaa kugu badanayso barnaamijka loo yaqaano in uu qofka uu isku jinoobo. shahwadana qofkay ku badanaysaa. inay joogto marka bahashan taabicada la dhaho ama umusibyaanka la dhaho ama dabaysha la dhaho, inay joogto ee qofka la joogto, dhowr arrimood ayaa lagu ogaanayaa. dhowr arrimood oo mashaakilana way leeyihiin. yusabibu, waxay horta sababtaa atalaaq, inuu labada qof isfuraan ayay sababtaa isqabo. waxay kale badisaa mashaakisha iyo howlaha oo badan ayagana labada qof u dhexayso. waxay sababtaa in ay mataqaanaa isku firaaqeeyaan labada isqabto ama labada isku doonan ama labada isjecel. waxay dib dhigtaa guurka. waxay sababtaa in la iskaraahiyeysto, ay iskaraahiyestaan hooyada iyo cunugeeda. waxay sababtaa karaahiyo, in la iskaraahiyeysto. tii hore waxay ahayd in hooyada iyo cunugeeda ay isdhibsadaan. tan waa inay iskaraahiyestaan, inay iskhilaafaan, walaalaha inay iskhilaafaan, walaalaha inay mataqaanaa ayna isku qanacsaneen. waxay sababtaa oo naagaha u sababtaa inay karaahiyeystaan, inay dhibsadaan ninkooda, in ay calaaqada ay la lahaayeen oo jaceylka ahayd ay mataqaanaa yareeyaan. waxay sababtaa oy u sababtaa dadka isqabo in ayna is ixtiraamin, in ay naxariistii iyo calaaqadii fiicneyd guurto. waxay sababtaa in mataqaanaa noloshii fiicneyd ay burburto. waxay sababtaa in ay caloosha dhexdeeda wax kaaga dhex soo socdaan. xagga dumarka waxay sababtaa barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u dheer, aad iyo aadna muhiima. waxay sababtaa xagga ragga inuu ninka uu bedelo dharkiisa ama labiskiisa, kalba saad u taqaano. in uu in badan uu naagaha la fadhiyo, in badan uu naagaha fiiriyo, inuu in badan in uu naagaha mataqaanaa dumarka marka uu la fadhiyo uu isku arko wax la dhaho xishood la-aan. waxay sababtaa bahashan taabicada la dhaho ama jinka la dhaho ama qariinka la dhaho ama dabaysha soomaalida si u yaqaanay dhahaan. waxaa lagu tilmaamaa in ay ka ahaatay sixir jin ah
oo lagu salladay qofka xilliyada hore waxay la soo banbaxaysaa dhibaatooyin fara badan in uu qofka asagoo mataqaanaa timihiisii ay daadanayaan u arko labiskiisa hadduu labisan jiray asagoo labisnayn uu banaanka usoo baxo calaamooyinka aad bay u fara badan yihiin in lugaha hoostooda ay mataqaanaa ay ka yeeshaan ama cagaar ama jaallo inay ka yeeshaan dhumada ilaa iyo in uu xanuun aad ka dareento haddaad dumar tahay riximka in waxyaalo mataqaanaa shiirayo oo kale gabadha ay mataqaanaa ka soo baxaan meesha farjiga waxa loo yaqaano caadada oo mataqaanaa xilligeedii loogu talagalay aan ku imaan in uu qofka arko riyooyin iyo waxyaalo ka argagixinaya xilli walbo in uu qofka arko ama uu dareemo ciriiri laabta xaggeeda in uu ooyo inuuna qofka uu dareemin wax ammaan ah uu mar walba cabsi iyo dareemayo in uu haddii ay gabadha uur qaado cunuga uu mar walba kasoo dilmo haddii in aad dareento in ay wax ku daba socdaan in ay mar walba wax ku daba socdaan gadaashaadan aad fiirinayso waxaan kasoo sheekeeyey mashaakishii insha allahu tacaala beri hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu igu simo waxaan ka sheekeyn doonaa daawooyinkii iyo wixii u fiicnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin macaanow oo idin leh soomaaliya meel walba joogtaanbo khayr iyo barwaaqo ku galabeysta kusoo haysto